waxbarashada Al-Kuwait ee magaalada Hargeysa qaybtiisa tababarada beeraha iyo qaybta xirfadaha hablaha ayaa maanta xaflad qalin jabin u qabtay 31 hablood oo dhameystay xirfadda dawaarka iyo 15 inan oo iyaguna bartay aqoonta casriga ah ee beeraha ee loo yaqaan greenhouse-ka waxaana ka soo qayb galay xafladii loo qabtay ardaydaasi qalin jabinaysay maamulka sare hay'adda Al-Kuwait xildhibaano مسؤولين كسعتي هيئة تاجرة حرنت وحبرشة الكويت علماء ودين إيا مرتي شرف كله وقورين هالكاسو حكى اللي مدح وحصو صاركا هيئة ARC إنجنير حسن متولي. اليوم نحتفل بإتمام البرامج التدريبية. البرنامج الأول برنامج تعليم فنون الخياطة والتفصيل والذي أقيم بالمعهد الحرفي للفتيات. البرنامج في تأهيل وتمكين أبنائنا وإخواننا وأخواتنا من تعليم حرفة أو مهنة يكتسبون منها ويأكلون من عمل أيديهم ويساهمون في تنمية مجتمعاتهم. waxaana uu sheegay in maanta uu xafladeynayaan ardayda dhameysatay labada tababar ee beeraha iyo barashada dawaarka waxaana uu sheegay muhiimadda ay leedahay in la barto xirfadaha kuwaas oo uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan horumarka bulshada iyo kor u kaca dhaqaalaha. Waxaan waa sarci baanu baranay waxa weeyaan qaabkii beeri horena looga gudbi lahaa iyo wax soo saarka lagu sameyn lahaa marka kulli waxaan doonaynaa inaanu annaguna cilmigan aanu baranay aanu gudbino dad waxaanu ka nimi gobolka Sanaag baan anagu ka nimiyo kulli hay'adda NRC iyo hay'adda Al-Rahmi Al-Kuwaiti waxa weeyaan aad bay u mahadsan yihiin waxaan meesha ka maqnay wasaaradii beeraha oo iyaduna nala joogtay waxaan halkan aniga iyo saaxiibadahayga igala tirsan qaybta xirfadda dawaarka ee macadka xirfadda mahad balaaran ayaan u jeedinaynaa macallimiinta xirfadda iyo farsamada gacanta ee Kuwaitiga. sidoo kale halkaasi waxa ka hadlay xubno isugu jira xildhibaano culimaa u diin mas'uuliyiinta hay'adaha NRC Safe Children iyo Gafo. 31 hablood ayaa waxa ay barteen si bilaash ah sida wax loo talo lana siiyay inan walba mashiinkii ay ku shaqaysanaysay taas oo door weyn ka qaadan doonta usradeeda ay ka mid tahay si ay dhaqaalahooda sare ugu soo qaado inamada bartay beeraha 13 reer Ceerigaabo iyo labada reer Hargeysa waxa aan doonayaa inaan idin iraahdo farsamo aad iyo aad u fiican ba barateen waxaan mahad celin ballaaran u jeedinayaa macadkan aad ka qiimaha badan fursadda fiican wadankeena siiyay noocyada kala duwan waxa weeye barnaamijkan waxaan ugu tala galay oo bacdiisu ahayd in ardayda Ceerigaabo laga keenay oo ay la socdaan arday iyaguna ka socda wasaaradda beeraha oo saddexa hal qof oo ka socda wasaaradda beeraha ee heer gobol Sanaag iyo laba arday oo ka socda heer qaran Hargeysa iyo hal qof oo ka socda jaamacadda Sanaag University iyo hal qof oo ka socda NRC ayaa barnaamijka faa'iideysanay marka tirada guud waxay ahayd 15 ka qof ujeedadan ugu tala galay waxay ahayd dadku inay wax ka bartaan oo fahmaan sida wax loo beerto gaar ahaan greenhouse-yada waxaan rajaynaynaa Ceerigaabo oo markay ugu yar tahay tamaandho aan dibadda laga keenin inaynu aragno sanadada soo socda shaqadan wanaagsan iyo tababarkan maanta aynu u joogno ee lagu soo saaray hablaha farshaxanka iyo farsamada bartay iyo inamada waxa weeyaan ka faa'iideystay waxa weeyaan beeraha waxaan leeyahay khaasatan inamada beeraha barteen waxa weeye farsamada barateen ee beeraha ha ka santaagina ee ku shaqeeya aniga maanta sharaf weyn bay ii tahay degmada Macal Haaruun maxad ku yaala
oo intaasoo arday ay maanta ka qalin jabinayso weliba ardayda qaar ay ka yimaadeen mastaafo dhan 700 kilomitir gobolka Sanaag lagu qiyaaso aad iyo aad bay sharaf weyn u tahay anigoo ku hadlaya afkii dawladda hoose horta mahadkan Kuweytiga in badan wuxuu waxtar u yeeshay dalka waad arkaysaan maanta wax soo saarkay soo bandhigeen assessment-kaanu sameynay waxaanu ogaanay iskuulka Kuweytiga inuu yahay ama macahadka Kuweytiga meesha ugu wanaagsan ee maanta farshaxanka gacanta lambar 1 ku haysta xagga tacliinta xagga Soomaaliland waxaanu keensanay macallimiin si ay noogu sameeyaan upgrading maadaama ay haystaan qalabkii ugu dambeeyay casriga ahaa iyo tacliintii maaragtay munaasabka ku ahayd ardadaanu doonaynay inay barato runtii Save Children farsamada gacanta waxay ka shaqeynaysay muddo dheer ugu dambeyntii halkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha guud ee hay'adda ARC دكتور عبد الرحمن معلمو ومدربي هذه الدورات الزراعية أو التنموية المختلفة من خياطة وغيرها. تنوعت مشاريع لجنة أفريقيا للإغاثة التي تعمل في القرن الأفريقي بشكل عام. هذه المؤسسة الممثلة للرحمة العالمية الكويتية وأكبر مشروع في أرض الصومال يعتبر مجمع الكويت للتنمية. waxaana uu sheegay in barashada xirfaduhu ay tahay qaabka lagu horumarinayo bulshada. hay'adda ARC oo hoos timaada hay'adda Raxmul Caalamiya ee dalka Kuwait oo ka shaqeysa dalal badan oo Afrikaan ay Somaliland ka fuliso mashaariicda horumarinta dhinaca xirfadaha ee nolosha bulshada kor u qaadaya.